waxaa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada ay Soomaalidu ku wada xiriirto aad loogu hadalhayaa ciidamada booliiska dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sida gaarka ah u tababaran ee Harimacad kuwaas oo sawirradooda ay qabsadeen baraha bulshada. Haddaba Harimacad waa ciidan caynkee ah xagee ayaase lagu soo tababaray, maxaase loogu bixiyey magaca Harimacad, yaase u bixiyey, xageese ayuu ka yimid magacan Harimacad, maxayse yihiin ciidamadan Harimacad ee aadka loo hadalhayo. Haddaba inta aanan mawduuca warbixinteenan aan u gudagelin, fadlan hadiiba ay tahay markii kuugu horeysay ee aad aragto channelkan Dulmidi Tube, ha ka ilaabin in aad subscribe saarato oo aadna gambaleelka u furato si aad ugu mid noqoto saaxiibada sida joogtada ugu xiran channelkan Dulmidi Tube. Mahadsanida. dad badan ayaa baraha bulshada aad u wareejinayay sawirada xayawaanka Harimacadka iyo ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sida gaarka ah u tababaran ee loogu magac daray xayawaanka Harimacad. ciidanka ayaa ka qayb qaatay howlgal ay dawladda ay ka fulisay xaruntii Inji ay ururka Ahlus Sunna ay ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb oo ay markii dambe dagaalkaasi ay guul ay ka soo hoyeen ciidanka Harimacad ayaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidankii la geeyay magaalada Baydhabo xilli doorashada Koonfur Galbeed ay halkaasi ka dhacay waxaana sidoo kale ciidanka loo daabulay qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Haddaba maxay yihiin ciidankan Harimacad? ciidanka Harimacad oo ah ciidan ka tirsan booliiska dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la aasaasay markii uu xukunka talada dalka uu la wareegay madaxweynaha haatan talada dalka haya ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waana ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortagga rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka. diga sultan man samarinayno kasto santobiyaha aan raacanay taariikhor loo samarkashay noqotay. ciidankan oo tiro ahaan lagu qiyaasay 1000 askari ayaa waxaa tababaray dawladda Turkiga oo gudaha dalkeeda ay ku soo tababartay, halka qaar kalena ay tababarka ay ku qaateen xerada Turkisom ay ciidamada Turkiga ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. inta badan hubka ay wataan ciidankan Harimacad ayaa ah mid fudud, waxaana ay u carbiyeysan yihiin oo si xeel dheeri ah loogu tababaray shiishka iyo howlgallada qorshaysan. tuutaha ay wataan askarta Harimacad ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliiska, waxaana intooda badan ay horay uga tirsanayeen ciidanka nabad sugidda ee NISA sida uu BBC-da u sheegay Cabdisalaam Guuleed, taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda NISA. ciidamadan waxa ay intooda badan ka mid ahaayeen askartii NISA ee hubka sitay, balse dawladda hadda jirta ee uu hogaaminayo mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa u bedeshay booliiska sida gaarka ah u tababaran. waxa ay u badan tahay in magacooda Harimacad lagu saleeyay midabka tuutaha ay xiran yihiin, ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA. ciidamadan oo waayadii dambe soo shaabaxay ayaa dad badan oo siyaasadda falanqeeya waxa ay dawladda ku dhaliileen inay u adeegsato dana siyaasadeed, halka cududda ciidankanna loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo dhaliilay howlgallada ay fuliyeen ciidamada Harimacad ayaa dhawaan magaalada Boosaaso ka sheegay in ciidanka Harimacad si khaldan loo adeegsanayo. ciidamo la yiraahdo Harimacad waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii Harimacad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd, laakiin Harimacad xoolihii iyo dadkii cunaya runtii waa arrin aan fiicnayn, suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda oo abuuraysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qor caaradiisa la isku maamulo. arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan.
shalay oo ay taariikhdu ku beegneed 2 bishan saddexaad ee sanadan 2020 ayay dagaal la galeen maleeshiyo ay hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyagoona garab ka helaya ciidamada Kenya. dagaalkaas oo ka dhacay Beled Xaabo ayaa saacado badan qaatay. ugu dambeyntiina waxaa dagaalkaasi ku guuleystay ciidanka Harimacad iyagoona orod ku geliyay ciidankii ka soo horjeeday magaalada Mandheera. cadowga Kenya iyo dabadhilifkii la soconay gaadiid laga qabtay waxaa jira khasaaro badan oo loo geystay laakiin guud ahaan waxaa xasiloon Beled Xaawo iyo xuduudka Beled Xaawo iyo aagga xuduud beenaadka ee aagga mas'uuliyadeed ee Soomaalidu nabad weeye si buuxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku hay. Qoryaha waxa soo ridayay waxa weeye dawladda Kenya waxay ridayeen madaafiic bay ridayeen waxay ridayeen qoryaha mootarka ridayeen waxay ridayeen qoryaha soddonka laakiin ma jaxanjaxayaasha geesiyaasha halyeeyada Soomaaliyeed ciidanka qaranka wuxuu awood u yeeshay inuu sandhag u dhigin madfaca afka inuu ka dhugo Kenya iyo wixii la socdo dabadhilifkaas si buuxda inuu jiro. waxaana hay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro hallaayo ku nabadgeli. dagaalkaas oo ciidamada Harimacad ay kaga awood roonaadeen maleeshiyaadkii iyo ciidamada Kenyaanka ayaa waxay sababtay in baraha bulshada ay qabsadaan iyagoona dadka ay aad ugu faanayaan ciidanka xoogga dalka ee Harimacad. ciidanka Harimacad ayaa u badan rag dhalinyaro ah waxaana taliye u ah Farxaan Maxamuud Qaroole oo ah nin dhalinyaro ah. ciidamada Soomaaliya oo markii hore lagu eedeyn jiray in ay awood lahayn oo aanay soo dhaafin Muqdisho ayaa hadda xuduudaha dalka ka caawinaya waxaana muuqata saasaan dawladnimo iyagoona bulshada ay bahadal hayaan magacyada Harimacad iyo Gorgor. haatanna waxay taagan tahay ama xaalku waxa uu muuqdaa Soomaali baa leh. kala saar lahu kala sooco kala saar lahu kala sooco عبيت لذي تسكو إذا
sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku sigto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku arko maasi silciyo dhibgaadho dhammaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku arko maasi silciyo dhibgaadho dhammaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale